Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan soo dhawaada waa mar kaliya muuqaal cusub muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa dabcan musalsalka walaalaha haddaba Rajab Ustaaw doorkiisu ahaa beerkii ayaa waxa uu sheegay in uu soo dhawaaday seasonkii saddexaad duubistiisa haddana ay ku guda jiraan sidoo kale muuqaalka dhexdiisa waxaan uga hadlaynaa dhowr akhbaarood oo muhiim ah sida in 6 jilaa lagu soo daray ciise iyo hinjilayaashaasi yaas laga saari doonaa haddaba daawadii muuqaalka like noo saar sidoo kale haddii ay tahay markii koowaad soo booqatay janaalkeena subscribe saar waa maasanta intaa ka bacdi soo dhawow haddaba ugu horreyntii waxaa la sheegay in laga saari doono yarka lagu magacaabo Tolga iyo sidoo kale Emir iyo sidoo kale Usge haddaba hal mid oo kaliya aan garanayaa midaas waxay tahay sababta looga saarayo Tolga waxa ku biiray dhankaasi ciidamada maadaama tababarku u bilaabmanayo saadarteeda waxa uu liifti ka qaadanayaa taxanaha kaliya waa sida la sheegay inkastoo shaqadiisu ay tahay jilaa laakiin wax uu ka damacsan yahay ciidanka ma garanayay laga yaabaa in ay riyadiisa ka mid tahay ciidan hoosaadka ama police sida kolba adigu taqaantid waxa jira military iyo police ayaa jira waxa laga yaabaa markii inuu police ku biirsami doono laakiin taxanaha sidaas ayuu kaga bixi doonaa yarka lagu magacaabo Tolga maadaama uu Tolga ka baxayna waxa la go'aamiyay in lagu soo daro jilayaal cusub kuwaas oo buuxiyay duurarka la saaray haddaba yihiin labada kale ee taxanaha ka baxaya haddaba labada kale taxanaha ka baxaya waa Emir iyo sidoo kale Usge Emir iyo Usge samad ognahay bab xalqadii u dambeeyay ee seasonka labaad ee musalsalka walaalaha xiise loo mahin sidoo kale doorkoodan waxa bid muddo mid aasan waxba tareen saadarteeda labadaasina sidaas ay taxanaha kaga bixi doonaan Emir iyo Usge inkastoo aan la arki doonin ba iyaga seasonka soo socda wala bilaa wala dhamaad ma aragtay laguma soo dari doono halkii kaliya looga shaksan yahay yarka lagu magacaabo Tolga in xalqada hore la arki doono wixii inta ka dambeeyay oo kaliyana uu ka qaadan doono ma aragtay maxay ahayd liif ama ma aragtay taxanaha laga saari doono haddaba muuqaalka bilowga hore sida ku soo aragteen waxaad aragteen yarkii lagu magacaabay beerkii oo hadlaya asagoona leh seasonka saddexaad ma aragtay waxaan nimaanay duubistiisa ee bilaamatay inkastoo ma aragtay taxanaha uusan wax saasa ka sheegay wax macnaha macluumaad uusan sheegin uu kaliya ma aragtay joogay dalka Spain una ku hadlayay luqadda Isbaanishka saadarteeda beerkina waxa uu ku maqnaa Spain ay ku maqnaa xisaan hore idin ku sheegnay beerkii waxa uu yeeshay fanis badan asagii ay bike marmarka qaar kaalinta koobaad ay soo galayeen ma aragtay labada jila ee ugu popularity badan dhankaas iyo daafaha caalamka kaalinta koobaad ay soo galayeen taas ayaa sababtay in beerkii ma aragtay Spain uu tago sidoo kale faniskiisa waqti la soo qaato maadaama badi faniskiisa ay u badan yihiin dalka Spain sidoo kale fanisyada ma aragtay musalsalka walaalaha dadka u badan waxay joogaan Jazaa'ir ama Algeria kolba sida adigu taqaantid iyo sidoo kale Imaaraadka iyo sidoo kale Iraq iyo Sacuudi Carabiya wadamo kale badan laakiin muhiimadu waa inta ugu badan marka badi labada wadan ee musalsalka Turkiga aad u daawada aad loo yaqaan waxay yihiin Spain iyo sidoo kale Algeria ayaa musalsalka Turkiga ma aragtay aad u daawada soo marka asxaabteena qiimaha badan seasonka saddexaad ee musalsalka walaalaha waxa la bilaabi doonaa bishan hadda nagu soo wajahan ee September annagana waxaan isku day doonaa maalin walba in aan muuqaal ka soo sameeyno musalsalka walaalaha maadaama uu soo dhawaaday macluumaad badanna ay soo baxeen yaa lagu soo dari doonaa yaasa ka bixi doonaa haddaba saamad ognahayba maalmihii u dambeeyay waxaa la hadalhayay qofta lagu magacaabay Harika ayadana waxaa la filayaa in taxanaha ay dib ugu soo laaban doonto doorkeedina la heli doono maadaama hadda Cumar iyo Taajiriin noqdeen marka Harikana waa lagu soo dari doonaa sidaas ay ugu soo laaban doontaa haddaba tan isweydiinta mudan ay waxay tahay mar walba ama ma aragtay qof walba macluumaad gudbinayo uu iska dhatirayo xitaa directoradu ay ma aragtay dadka aysan la wadaagin macluumaadkiisa waa Caakif Atakuul saamad ognahay xalqadii u dambeysay ee seasonka labaad waxay ahayd mid aad iyo aad u murugo badan sidoo kale dhan kalena farxad wadatay laakiinse waxaan aragnay ninkii Caakif Atakuul ahaa oo meel banaan ku soo dhacay isla markaana asagoo oo noqday faqiir haddaba Caakif Atakuul faqiirnimadaasi sidoo uga soo bixi doonaa sidase ma aragtay dhibaatadii uu geystay looga argudi doonaa ciqaabtiisana uu u mari doonaa sida loo badinayo Caakif Atakuul mar kale ayaa waxa uu fursad u helayaa in deymihii laga bixiyo ama laga cafiyo isla markaana shirkadiisu gacanta ku dhigo asagoo midda koowaad isku day doona in uu ka arguto Nabhad iyo sidoo kale Suuzaan qof lagu magacaabayay iyo Ayla haddaba #nab Ayla waa mid runtii ma aragtay aad uga xanaajiyay ninka lagu magacaabo ma aragtay Caakif Atakuul haddaba
Caakif wuxuu isku dayi doonaa seasonka soo socda in uu wax gaarsiiyo qofta lagu magacaabo Nabhat. Haddaba mid kale ayaa jirta oo seasonka saddexaad dhexdiisa fashilmi doonta sida loo badinayo. Midaasina waxay tahayba saan ognahay Rasuul Oscar ayaa qofka dilay waan wada garanaynaa dhammaanteena waa qofta lagu magacaabo ma aragtay Nabhat. Nabhat hadiisa ma xubintee yaa ka argudan doona ama ma aragtay Nabhat iyo Ayla ma isku dhici doonaan. Aylana may ka xumaan doontaa dilkii loo geystay ninkoodii hore ee lagu magacaabay Rasuul Oscar. Saa darteeda ma aragtay Nabhat seasonka saddexaad gudihiisa waxay ku fashilmi doontaa dilkii u geysatay Rasuul Oscar. Sidoo kale dilkaas haddii uu fashilmo tan isweydiinta mudan ayaa waxay tahay Duruki iyo Beerk saaxiibtinimadooda halkaas miyay ku dhamaanaysaa. Sidoo kale Nabhat iyo Aylana saaxiibtinimadooda halkaas miyay ku dhamaan doontaa. Kulley ninka arrinkaas fashili doona waa la wada garanayaa waa ninka lagu magacaabo Caakif Atakuul. Laakiin hadduu ugu hanjabo ama hal mar uu dhaho wax isii ama yacni lacagteedii ii soo celiya ama shirkadeedii ii soo celiya haddii kale waxaan fashilayaa inaad Rasuul Oscar dishay ayadana waxay ugu hanjabaysaa dilkii uu geystay weli oo ahaa ma aragtay saddexda walaalo ama afarta walaalo Cumar, Asiya iyo Qadiri. Sidoo kale Ayla aan dhihina waxaa la dhahaa gabadha ma aragtay Emel ayaa la dhahaa in badan ayaan kala maqnay runtii muddo 2 bilood ama xalqad ka daawan musalsalka walaalaha saa darteed Emel magaceeda waa iloobay. Marka aabahooda maadaama Caakif Atakuul dilay saa darteeda Caakif wax ma samayn karo waana mid la filayo in seasonka saddexaad ma aragtay ciqaabteeda uu mari doono ninka lagu magacaabo Caakif Atakuul. Haddaba waa goorma gooskooska koowaad ee xalqada 57 kulley saan wada ognahay seasonkii u dambeysay ee labaad bilowgiisii waxaan daawanay xalqadiisa koowaad bisha September asagoo bisha September markay 3 ahayd gooskooska la sii daayay. Marka saa daraadeeda seasonkan saddexaad ee soo socdana gooskooskiisa waxaa la filayaa August dhamaadkeeda ama dabayaaqada August in gooskooska la daawan doono ama September bilowgeeda isla markaana September markay jirto barka ama September bartamaheeda marka la marayo in la daawan doono xalqada koobaad ee seasonka saddexaad inkastoo la isleeyahay kasoo horeysiiya maadaama taxanaha uu aad mid u shidan ahaa sidoo kale mid loo xiiseyna uu yahay. Haddaba sidoo kale waxaa isweydiin mudan ma laga yaabaa in uu kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad uu ku sii jiro musalsalka oo marnaba uusan iman kaalinta afraad dhanka daawashada. Kulley midaas waa midda ugu badan ee la xiiseynayo asaga iyo musalsalka Cusmaan iyo musalsal kale lagu magacaabo Goonulday oo laga daawo telefishinka TRT saddexda kaalmood oo horeysa ma aysan ka bixi jirin halka kaalinta koowaad ku jiri jiray musalsalka Goonulday. Kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaadna Cusmaan iyo musalsalkeena walaalaha uu isu dhiibi jireen. Marka saddexdaba isku waqti ayaa la bilaabi doona waana kuwa aad loo wada sugi doono halka Goonulday la filayo inuu xoogaa ka yar dambeyn doono maadaama Goonulday mar walba la leeyahay raago inkastoo waagi hore aan la raagayn laakiin dhamaadkii Goonulday wuuna ka horeeyay waxaana la filayaa dhanka bilaabidana in uu ka dambeyn doono. Haddaba kulley waan aragnaa sheekadu meesha ay ku biyo shubatay haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar sidoo kale haddii muuqaalkan daawanaysa like saar waa mahadsantahay intaa ka bacdi waa anigoo saaxiibkeena Khalid waxaan idinkaga tegayaa sidii caadada noo ahayd mar walba. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.